wadatashiga siyaasadda Puntland war murtiyeed 15 bisha shanaad 2023 madasha siyaasadda Puntland waxay soo qaban qaabisay shir socday 2 casho 15 14 iyo 15 bisha May 2023 waxaana shirka ka soo qayb galay siyaasiyiin mug iyo miisaan ku leh deegaanada Puntland shirkaas oo ka dhacay caasimadda Puntland ee Garowe shirka waxaa marti sharaf ahaan uga soo qayb galay si fogaan arag ah Zoom ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole madaxweynihii hore ee Puntland shirka waxaa lagu falanqeeyay geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland gaar ahaan doorashada golayaasha deegaanka sidoo kale shirku wuxuu dul istaagay isku dayga xukuumadda Puntland ay ku doonayso wax ka beddelka dastuurka Puntland iyo duulaanka lagu soo qaaday magaalada Laascaano falanqayn dheer kadib waxaa shirku isku raacay go'aamada hoos ku qoran arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland siyaasiyiinta Puntland waxaa ka go'an in laga guuro hanaankii doorashooyinka ee ku salaysnaa beelaha oo ay Puntland ku soo dhaqmasay 25 sano ee ugu dambeysay loona guuro hanaan dimuqraadiyadeed oo loo siman yahay si waafaqsan dastuurka dowladda Puntland qodobada 44 45 46 iyo 47 siyaasiyiinta ka soo qayb galay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay Puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed laguna aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka Puntland taas oo kala dhantaalaysa midnimada shacabka xadgudubna ku ah dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 7 shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee Puntland wada dhistay isla markaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka Puntland ee xoreynta iyo difaaca gobolka Sool shirku wuxuu cambaareynayaa xadgudubka loo geystay xuquuqda barakacayaasha taas oo ay ku kaceen qaybo ka mid ah ururada siyaasadda sida uu sheegay xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland doorashada golayaasha wakiilada iyo madaxweynaha golaha wakiilada Puntland waxaa u furmi doona kalfadhigii ugu dambeeyay ee muddaxileedkooda 15 June ilaa 31 July 2023 waana in la helaa gole bedela golahan ugu dambeyn 31 December 2023 si loo xaqiijiyo geedi socodka dowladnimada Puntland muddaxileedka madaxweynaha hadda talada haya waxay ku egtahay 7 Janaayo 2024 sida ku cad dastuurka Puntland qodobkiisa 79 waana lama huraan in 8 January 2024 la xaqiijiyo doorashada madaxweynaha Puntland inay ku dhacdo xilligeedii dastuuriga ahaa si wadanka looga badbaadiyo hubanti la'aan siyaasadeed mid amni iyo firaaq dastuuri ah furidda dastuurka Puntland iyadoo xukuumaddu xaq u leedahay inay soo jeediso wax ka beddelka qodobo ka mid ah dastuurka sida ku cad qodobka 139 faqradiisa koowaad xarafka ta annagoo eegayna xaaladda kala guurka ah ee Puntland ay ku jirto iyo muddaxileedka labada gole oo dhammaad ah wuxuu shirku u arkaa in ay tahay isku day laga leeyahay dana siyaasadeed oo gaar ah oo ay ku hoos jirto muddo kororsi sharci darro ah shirku wuxuu yaqiinsan yahay in dastuurka Puntland u baahan yahay dib u eegis iyo wax ka beddel ay ka soo tala bixiyaan khubaro sharci iyo culamaa u diin dabadeedna loo qaado afti dadweyne ayna furiso dowlad haysata sharciyad buuxda
oo aan waqtigeedu dhammaad ahayn. SSC Khaatumo. Shirku wuxuu cambaareynaya xasuuqa, barakicinta iyo beegsiga uu maamulka Somaliland ku hayo shacabka gobolka Sool. Shirku wuxuu ka xun yahay mowqifka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka istaagtay duulaanka maamulka Somaliland iyo in aanay gudan waajibaadkeedii dastuuriga ahaa ee ka saarnaa ilaalinta midnimada dalka Soomaaliya. Shirku wuxuu si adag u dhaliilayaa in xukuumadda Siciid Cabdulaahi Deni u isticmaashay olole doorasho difaaca SSC Khaatumo. Shirku wuxuu isla qiray in gurmadka deegaanada SSC Khaatumo ee ka bilowday Puntland ay hormuud u ahaayeen isimada, siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka Puntland xilli xukuumadda Siciid Cabdulaahi Deni ay ka soo horjeeday taakulaynta iyo waxtarka deegaanada SSC Khaatumo kuna mashquulsanayd doorasho aan loo dhammayn. Xiriirka dowladda federaalka ah iyo Puntland. Waxaa la wada ogsoon yahay kaalintii hormuudka ahayd iyo doorkii shariifka ahaa ee dowladda Puntland ka soo qaadatay dowlad dhiska Soomaaliya iyadoo u hurtay naf iyo maalba. Waxaan u sheegaynaa hoggaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in shacabka Puntland ay ku filan yihiin xallinta ismaandhaafka doorashada la xiriirta oo aan loo baahnayn faragelin siyaasadeed iyo hadallo xanaf leh. Sidoo kale shirku wuxuu uga digayaa in madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni uu adeegsado khilaafka dowladda federaalka ah olole siyaasadeed. Cambaareyn. Shirku wuxuu si adag u cambaareynayaa hadalkii sharciga baalmarsanaa ee ka soo yeeray taliyaha ciidanka booliiska Puntland kaas oo looga gol lahaa xaalad abuur iyo in lagu banaysto weerarka isimada iyo siyaasiyiinta Puntland laguna xalaalaysto dhiigooda iyo hantidoodaba. Hadalkaas oo tusaale cad ka bixinaya muuqaalka dhabta ah ee madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni. Baaqa shirka. Shirka wadatashiga siyaasiyiinta Puntland wuxuu ku baaqayaa inta laga helayo doorashooyin loo dhan yahay kuna dhisan dastuurka, xeerarka kale ee Puntland iyo habraacyada doorashooyinka. Shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda Puntland in ay joojiso doorashooyinka aan heshiiska lagu ahayn oo sababi kara xasilooni darre amni iyo qalalaase siyaasadeed oo Puntland ka dhalata. Shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda Puntland inay soo fariisato miiska wadahadalka si looga wada xaajeysto xaaladda kala guurka ee Puntland iyo sidii Puntland ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. 2. Shirku wuxuu ku baaqayaa in la joojiyo furidda iyo wax ka beddelka dastuurka dowladda Puntland maadaama hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta xilhayntoodu gabaabsi tahay isla markaasna aanay ka tarjumayn baahiyaha shacabka Puntland. Horey waxay xukuumaddu u diiday wax ka beddelka dastuurka iyadoo ka eegaysa danaheeda gaarka ah. 3. Shirku wuxuu ku baaqayaa in doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynuhu ay ku dhacaan waqtigoodii dastuuriga ahaa ee loo asteeyay. Shirku wuxuu garwaaqsan yahay isku day kasta oo muddo kororsi ah inuu keeni karo cawaaqib xumo siyaasadeed iyo mid amni oo aan la mahadin doonin. 4. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shacabka Puntland ay ilaashadaan amniga iyo xasiloonida dhulka Puntland oo tacab iyo dhaqaale badan ka galay. Shirku wuxuu ugu yeerayaa hay'adaha amniga ee Puntland inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah ayna dhowraan nabadgelyada, sharafka iyo hantida shacabka Puntland. 5. Shirku wuxuu ugu baaqayaa in hay'adaha amnigu ka fogaadaan ku milanka siyaasadda iyo in loo adeegsado dana guracan. Waxaan si gaar ah uga digaynaa ciidanka booliska Puntland iyo ciidanka badda Puntland PMPF in aan loo adeegsan in lagu khalkhalgeliyo amniga Puntland. 6. Shirku wuxuu ku baaqayaa in golaha wakiilada Puntland ee waqtigiisu gabaabsiga yahay aanay Puntland u horseedin xasilooni darro siyaasadeed iyaga oo eeganaya dano gaar ah. Sidoo kale waxaan si gaar ah ugu baaqanaa guddoonka golaha wakiilada
in aanu baarlamaanka ku dirqin dano guracan oo madaxtooyada looga soo dhiibay. 7 shirku wuxuu ku baaqayaa in ismada iyo odayaasha dhaqanka ee Puntland ay qaataan kaalintoodii shariifka ahayd ee ay ku lahaayeen midnimada iyo xasiloonida Puntland, isla markaana ay si dhow ula socdaan khatarta ku soo fool leh Puntland. 8 shirku wuxuu ku baaqayaa in beesha caalamku aanay dhaqaalo ku bixin doorashada aan loo dhammayn ee ay xukuumaddu wado, taasoo horseedi karta qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni oo Puntland ka dhaca. Dhammaad waa mahadsantihiin.